Asxaabta halkan ku jirta waxaan u sheegaynaa in channelka lagu soo daray program yar oo loogu magac daray faa'iido isbuucii hal mar ayuu ka baxayaa halkan insha Allah dhawaan waan soo gelin doonaa haddii aad xiiseynayso waxyaabo badan oo faa'iido leh ama faa'iido ay ku jirto insha Allah qaybta hoose ee commentiga noogu qor si annagana dhiirigelin ee noogu noqoto mahadsanid. maalin maalmaha ka mid ah waxaan ku sii socday goobtayda shaqada. aad iyo aad baan u degdegsanaa. markaa boosteejada waxaa taagnaa gawaari bareefad ah iyo mid bas ah. waxaan markiiba isku dayay in aan soo raaco midka bareefadka ah. waa uuna ka lacag badnaa. waxaa saarneyd oo keliya 3 qof. aniga ayaa ku ahaa 4. kadib waxaa igu horeeyay 2 wiil. wayna ka sii degeen gaarigii. cabaar markii aan saarnayn gaariga ayaa darawalkii waxa uu dhahay bilis xirta suumanka oo waxaan rabnaa si dhaqsi leh inaan ku gaarno meesha. nin naga dambeeyay ayaa dhahay gacanta soo taagay maya si degdeg ha u wadin gaariga oo tartiib u wad. aad iyo aad baan ula yaabay waxa uu ka waday hadalkaas. aniga waxaan ku dhahay waxaan u socdaa shaqo waxaan rabnaa in si degdeg noola gaarsiiyo meesha. darawalkii waa uu isoo eegay kadibna waxa uu fiiriyay ninkii dambe gadaal fadhiyay. darawalku wuxuu nagu jawaabay labadiin si dhaqsi leh ayaan idinku geenayaa insha Allah. kadibna waxaan eegay ninkii waxaan hubaa markaan indhihiisa inay meel sare camal ay gaareen. waa asaga dhan si kale uu noqday. waa uuna suuxay. maalinkaas waa ka yaabay. darawalka ayaan weydiiyey waxaas waxay ahaayeen laakiin darawalku wuxuu igu jawaabay ninkan waa nin tuug ah mar walbana sidaan ayuu dadku u qiyaameeyaa.